waxyaalaha soo dhigay dhalinyaro badan waa ila soo hadashay. Waxaan rabaa video inaan uga faa'iideeyo. Anigu waxaan isticmaalo waa indicators. Indicators kuwa taqaanay MACD, RSI, stochastic ma aha indicator-kan. Dadka qaar waxaan u tilmaamay meelaha laga helo the top 100 indicators yaan dadka qaar u tilmaamay. Waxaan dareemayaa kulleydii markaan saas leeyahay qofka waa in horta wax u barta. Indicator-na kuu sheegayo waxa weeyo coding-kooda iyo soo saarkooda forex iyo exclusive u yihiin meel badan yihiin. Marka waxaan rabaa inaan ku dhaho baalan wada cusub yihiin waa time-kan ku jirno century-gan ku jirno iyo la soo saaray. Marka waxaad uga faa'iideysan kartaa in boqolkaas indicator aniga sidaan sameeyay. Aniga boqolkaas indicator baan test ku sameeyay. Waan back test gareeyay 3 years 4 years aan gadaal u raacay indicator walba iyo every pair the 28 pair aan ku raadiyay. Markaan ku raadiyay waxa ii soo baxday indicator-kii calaa hal xabo dale seller test gareeya MT4 ku dogsanaysa laptop-ka kadib indicator-ka gelinaysa meesha. Indicator-ka markaad meesha gelisid oo MQL4 la geliya dad garanayaan kulay YouTube ka raadsan kartaa waxa soo wax weyn wada aan qaada afan ku go'aan ma noqonayso aad u sahlan tahay inaad sameysid. Indicator-ka meesha gelisid gadaal u noqonaysa waxa tagaysa 3 sano ka hor ama 4 sano ka hor sidii ahayd. Waxaan ognahay waqti la soo dhaafay in suuqa volume xun uu ahaa. For your information ana kaylo indicator aan ku sheegay dhamaantood waa trend indicators ma aha reversal. Top and bottom ma sheegaya meesha laga soo noqonaya ma sheegayaan head and shoulder. Reversal macnaheedu dad garanaysid oo suuqa breakout-kiiska support resistance waxa dhan ma sheegayaan. Waxay sheegaan trending war suuqa trending ma yahay meel ma ka dhaqaaqaya. Markaas iyo xal raba in indicator-kaas kaaga faa'iido ku dhaho suuqa dhaqaaqaya halkan ka gal. Halkaas marka waxa ku salaanaya in suuqaas ilaa meeshu gaara aad la gaartid. Waxa kale oo marka meeshaas aad ka dhaxli doontaa wax la yiraahdo exit indicator. Markaad confirmation ka heshid oo dhahay macnaha mid ku dhahay kan la galay ka gashid waxa u baahan inaad ka dhex raadisid exit indicator meesha ku dhex jira ayakana mid ka bixin la suuqa. Way suuqa ma aha macnaha 2500 ama 2000 oo bib suuq soconaya inaad 50 bib ama 60 bib uga hartid ama structure meesha inta geysad meeshan support kan iyo resistance kan laga soo noqonaya halkaas uga hartid wixii ka dambeeyana 1500 oo bib sii socota lacagtaas adiga waxa weeyo ada indha qasaare kugu noqonaysa meeshaas nagarad marka kuwaas aan isticmaalaa laban ka dhaxlay aan ku qancay inaan test gareeyo waxaas aan sameeyaa waxay ugu qaadatay 1 full year haday san bilooyin raacsaneen kadib marka maxaan sameeyay markii aan wada test gareeyay exam la soo baxay 1 by 1 u test gareeyay indicator-ka 60 boqolkiiba 60 siiya win rate-kiisa meel goon aan ku qoranay kii kontamay siiyo iska tuuray kii 40 ku siiyo iska tuuraysa adigana ha kol walin way boqolkiiba waxa laga yaabaa qaarkood marka san u soo gelisid chat-kaada inaad xoogaa ka yara fahmi weyd laakiinse haddii meesha kugu jiraan mar walba cilmiga ma dhamaadee maalin ma u baahan doontaa marka midka ugu horreeya marka ka heshid oo the first indicator aad ka heshid oo confirmation aad ka heshid waxaad u baahan tahay inaad ka raadsid oo kaas la shaqeynayo oo la yiraahdo isagana second confirmation labaas marka isku heshid waxaad u baahan tahay kii suuqa ka bixin lahaa oo ah exit indicator su'aalaan suuqi baa meel trending gaaray si u socday waxa weeye momentum-kii volume-ka dhamaaday waa in midka uu ku dhihi karaa war suuq momentum waa dhamaaday la socotay waqtiga ka bixilay la maraya inaad ka baxda intaas yaan isticmaalaa haddaad leedahay in cimilahaniyo waxaad intaas ugu dhimatay ani isa wada dir iska wada siina waxaan mar labaad xoogaa fikir ku yar noqdo baahanta hatta hadaan ku sii maanta I don't think inaad lacag ku sameynayso balkaas waayo balkaas waa waxyaalo badan ku dhisan management ma ku dhisan psychology ba ku dhisan oo aniga ku siin karin riskiga qaabka loo qaato weli kama hadleen oo balkan qaabka loogu qaadanayo marka waxaad u baahan tahay in xoogaa you hang out marka ha dheeraanin sometimes waxtaan isla qaadan doonaa waxyaalo badan waa kuu sheegi doonaa insha Allah ku anfacaya